si wanaagsan ayay iigu caddahay inaan helay fursad aan caadi ahayn oo aan ku sameeyo waxyaabo muhiima. Colomba waxa uu huray naftiisa badbaadinta qoraaladii hore kuwaasi oo tartan kula jira waqtiga. Waxa uu hadda hogaamiyaa koox masiixiyiin iyo muslimiin isugu jira dalka Mali si loo ilaaliyo qoraalada muhiimka ee Islaamka. meelo kala duwan waqtiga ayaa iskuraya, sidaasi daraaddeed meelo badan oo aan ka shaqaynayay tan iyo sanadkii 2003 marna waa ay xasiloonaayeen marna maanay xasiloonayn. waxa aynu barannay sida ay arrimuhu dhaqsi ugu xumaanayeen oo ay si cajiib ah ugu dhacayeen. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد ma qiyaasi karo inaan ka fogaado marka ay jirto baahi muhiima. qoraalada la heli karo ee ka yimid Timbuktu iyo goobaha kale ee Mali ayaa waxa ay wax ka bedeleen in la dirso Islaamka galbeedka Afrika iyo sidoo kale taariikhda dhaqankaas, taas oo Islaamku saldhig u yahay marka laga hadlayo halkan oo Afrika ah. Timbuktu waxay hodan ku tahay kobcinta deeqaha waxbarasho ee gobolka. waxa ay soo saareen aqoon-yahano u gaar ah oo sharaxaad ka bixiya qur'aanka iyo culuumta kale ee Islaamka la xiriirta. gabayadooda waxaa ku qoran ammaanta nabiga. taasi xaqiiqdii waa bilowga daahfurka dhaxalka ku jira qoraaladaasi Timbuktu. ma ballan qaadi karno rabitaankeenna ah inaannu helno nabad caalami ah iyo inaannu fahanno xaqiiqda. taasina waa mid suurtagal aan ahayn maxaa yeelay dad badan oo ugu yaraan xiiseeya arrimahaasi waa kuwa doonaya inay burburiyaan maktabadahaasi. kani waa mashruuc iskaashi oo u baahan dad kala dhaqan duwan. weligeen ma aynu weydiin dadka diintooda gaarka ah ee ay aaminsan yihiin. waxa aan ogaaday in mujtamaca Benedictina ee diinta Masiixiga ay qayb ka yihiin wadada lagu helayo nolol wanaagsan. doqon ma ihi marka laga hadlayo khatarta qaadashadeeda. waxa aan danaynayaa difaaca nafta. dabcan marka aad joogto meel sida Lubnaan, Suuriya iyo Qudus oo kale ah, waa suurtagal in mar walba ay wax ka dhacaan. laakiin waynu ogaanaa inay wax ka dhacaan London, Paris, New York iyo meel walba oo dunida. laakiin waxa aanu u malaynayaa waxyaabaha gaarka ka dhigay waa xasilooni darrida siyaabo kala duwan uga dhacaya meelaha qaar sanado badan. muhiimaddu waa shaqo weyn. waxaynu awoodnaa in dadka aynu ku caawinno goobahaasi oo aanu ilaalino dhaxalka dhaqankooda. waxa aan rajaynayaa marka waqti loo helo in cidi uun ayna caawin doonto.